dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baasaboorka diblomaasiga kala noqotay dhammaan xildhibaanada wasiirada iyo madaxda kale ee Jubbaland sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa baasaboor kala noqotay wasiirada iyo xildhibaanadii hore ee Jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta haysta baasaboorka isla marhaantana taageersan maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe. wararkaas ayaa inta ku daraya in immigration-ka Soomaaliya uu kansal gareeyay baasaboorka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada kuwaasi oo dhawaan qaarkood yimid Muqdisho. xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamankii hore ee Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in lagala noqday baasaboorka diblomaasiga ayna kala wareegeen immigration-ka Soomaaliya isaga iyo wasiiro iyo xildhibaano kale oo qaarkood hadda sheegay inay shaqeeyaan. waxaan ku sugannahay Muqdisho waxaana loo diiday baasaboorka diblomaasiga waxaana loo sheegay in dowladda Soomaaliya ay bixisay amarkaasi ayuu yiri xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka tirsan baarlamankii hore ee Jubbaland. aniga kaligay ma ahan waxaa jira wasiiro iyo xildhibaano kale xitaa waxaana loo sheegay in laga qaaday madaxda sare qaarna hadda laga qaaday rabo ayuu yiri xildhibaan Axmed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta gudaha Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inaysan aqoonsanin doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee Jubbaland kaas oo la sheegay in mar kale lagu doortay madaxweyne Madoobe. khilaafka dowladda Jubbaland ayaa hadba heer maraya. isla wararkii Jubbaland ayaan ku guda jirnay shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa maanta waxa ay sheegeen in ay halkaasi ku arkeen qarax miino kadibna hay'adda nabad sugidda sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa fashiliyay qaraxaasi lagu aasay xaafad ka tirsan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. qoraal kooban oo ay soo saartay Jubbaland ayay ku sheegay inay fashiliyeen qaraxyo miino lagu aasay wadada dhexdeeda xaafadda Madiina ee magaalada Kismaayo oo la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in xaafadda qaraxaasi lagu aasay ay ka agdhowyihiin siyaasiyiin dad barakacayaal ah kuwaasi oo ku nool magaalada Kismaayo. ciidanka hay'adda nabad sugidda sirdoonka Jubbaland ayaa miino ka soo saaray goordhow wadada gasha xaafadda Madiina ee Kismaayo taa oo ay degan yihiin dad isugu jira siyaasiyiin iyo meelaha qaar oo hareerahoodan ay degan yihiin dad siyaasiyiin. dhinaca kale isbedel doonka Jubbaland ayaa dhankooda iyagu war ay soo saareen waxay sheegeen inay ka mid ahayd kuwaasi qorshayaal loo maleegay in lagu dhibaateeyo shacabka iyo isbedel doonka Jubbaland ee doonaya inay xal u helaan dhibaatooyinka ka jira deegaanka. waxaa kale oo ay sheegeen in aysan tani u dulqaadan doonin inay ka mid tahay falalka guracan ee maamulka talada hayuu ku dhaqaaqayo. isla walaalkii Jubbaland ayaa ku guda jirnay boqolaal ka mid ah shacabka gobolka Gada ayaa ku xayran magaalada Muqdisho kuwaasi oo Muqdisho u soo doonta caafimaad iyo adeegyo kale. dhowr qof oo ka mid ah bulshada halkan ku xayran oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo diiday inay dib ugu laabtaan deegaanada waxaana sababta ay ku sheegeen inay saameeyeen khilaafka ama ay saameyn ku yeelatay khilaafka dowladda iyo Jubbaland u dhaxeeya gobolkaasi ka socda. nabadan Maxamed Xasan oo ka tirsan waxgaradka gobolka Gado ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in isagii boqolaal kale oo ka yimid Gado iyo shirkadda diblomaadka ay u sheegeen inaysan ku celin karin sababta oo ay tahay amar ka soo baxay dowladda. aniga waxaan Muqdisho u imid caafimaad waxaan isla joognaa dad kale oo shacab ah iyaguna waa loo diiday inay xanuunsan yihiin oo ay wadankoodii ama deegaankoodii ugu laabtaan. dhammaanteen waxaanu weynay diyaaradna qaado waxaanu joognaa Muqdisho ayuu yiri. waxaan dalbanayaa in dowladda noo ogolaato inaan dib ugu laabano deegaankeena sabab kasta ahaatee ayuu yiri nabadoonkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa gobolka Gado ku soo rogtay cunqabateyn dhanka diblomaadka waxaana hore looga joojiyay diyaaradihii saarnaa ama diyaarada ay saarnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.